wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland oo weheliyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka oo muddooyinkii u dambeeyay safar shaqo ugu maqnaa magaalada Nairobi oo xarunta waddanka Kenya ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay wasiiradu ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen ujeedada safarkooda waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland mudane Maxamed Daahir Axmed waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maanta waxaan wafdi wasiirka qorsheynta hogaaminayo oo aniga wasiir ku-xigeenka maaliyadda ay ka tirsanaa Nairobi ka soo noqonay halkaas oo shaqo u tagnay la xiriidha institutionska iyo hay'adaha la shaqeeya horumarinta dhaqaalaha iyo qorsheynta dhammaan shirarkii aanu galay si wanaagsan bay noogu soo dhamaadeen iyo afkarada waxa ka mid ah shirarka aanu galay qorsheyn loo sameynayo SDF2 amba qaybtii labaad ee sanduuqa horumarinta Soomaaliland oo qorsheyntiisii iyo kala saaristiisii maxaa ahayd iminka la guda galay waxaanu la kulanno kale bangiga adduunka iyo safaarado badan oo wasiirku inoo faahfaahin doono Soomaaliland caalamku waa ogol yahay wada shaqeynta ula lahaana way sii soconaysaa maadaama Soomaaliland tahay dal isagu wax qabsaday oo horumarinta dadkiisa iyo bixinta adeega asaasiga bay isagu maal gashada taas iyadoo laga duulayo caalamku diyaar buu yahay inuu sii wada shaqeynta ula lahaa intaasi kadib wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland mudane Cawaale Ibraahim Sharwac ayaa waxa uu ka warbixiyay kulamo kala duwan oo ay la yeesheen safaarado kala duwan oo ku yaala waddanka Kenya waxaana hadaladii wasiirka ka mid ahaa sida uu sheegay wasiirku maanta waxaan ka soo noqonay safar dhowr cisho shaqo ahaa oo aan ku tagnay Kenya safarkaasi oo ku saabsanaa inaan la kulano hay'adaha iyo safaaradaha nala shaqeeya wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda badana waxay leeyihiin xiriir caalami ah marka hadda waxaan u tagnay inaan la kulano dad aan wada shaqeyn naga dhaxayso oo xafiisyadoodu de Nairobi ay ku yaalaan badana oo sida safaaradaha iyo UN-ta oo kale xafiisyadu ku yaalaan marka waxaan la kulanay dadka aan la kulanay ama institutionada aan la kulanay waxa kamid ahaa World Bank safaaradda Holland ee dalka ku taala safaaradda Jarmalka madax sare oo ka tirsan DFID iyo madax sare oo ka tirsan Danida ama Denmark iyo UK madaxda la kulanay qaarkood safiiray ahaayeen qaarkood saraakiil sare oo safaaradaha ka tirsan bay ahaayeen waxa ahmiyadda aanu la kulmanay waxa ahayd marka laga reebo wada hadalka guud wadamada Jarmalka iyo Hollandiiska iyo Denmark waxay waqtigan ku jiraan diyaarintii mashaariicdoodii 3 sano ahayd marka waxa ahmiyad mudan inaanu anagu tagno oo aanu qorshayaasheedo kalena la wadaagno aad bay u soo dhaweeyeen wana muhiim inaad isla jaango'naadaan prioritieskka ama waxyaabaha iyagu ay rabaan inay qabtaan iyo kuwa inagu aynu qabsanano sidoo kale waxaanu la kulanay madaxa World Bank Mr. Hu oo halkan loogu yimiday la kulankeegaas wuxuu daba socday kulankii hore halkan dhowr week hore aanu kula kulanay waxyaabaha aanu ka wada hadalay marka laga reebo arrimaha waaweyn ee World Bank uu ka wado mashaariicda waxa gaarkeen ka wada hadalay waxay ahayd sidii wax looga qaban lahaa abaaraha soo noqnoqda iyo waxyaabaha ay saameynta ku yeeshaan marka World Bank iyo UN-ta iyo EU iyo wasaaradda qorsheyntu waa dhaweyd waxa ay wada qabteen mashruuc la yiraahdo Dina oo lagu eegayay waxyaabaha impact-ka ama ay saameynta ay ku yeeshaan abaaruhu iyo sidii wax looga qaban lahaa marka saddexda hay'adood ee waaweyn ayaa waxa ay soo saareen wixii sidii wax looga qaban lahaa marka wada tashi bay nagala yeelanayeen marka taasi waa taa waxa kale oo World Bank iyo hay'adaha u gudbinay abiil ku saabsan sidii saameyntii cyclone-ka ama duufaanadii inagu dhacay sidii dib u dhis wax looga qaban lahaa hay'adaha aan la kulanay iyo safaaradaha aan la kulanay waxa kale oo ay ahmiyad saarayeen annagana ahmiyadoodu ah sidii shaqo abuuris loogu sameyn lahaa dhalinyarta iyo dadka reer Soomaaliland mashaariic badan oo ku saabsan shaqo abuuritaanka oo waliba xagga private sector-ka ay aad ugu jeesanayaan marka wada tashay nagala yeesheen oo ah sidii mashaariic badan oo la shaqeeya ee ganacsatada iyo public sector-ka la isku xilaa shaqo abuuris u bilaanto waxa kale oo aanu ka qayb qaadanay sida wasiirku sheegay wada hadallo aad muhiim u ah oo ku saabsan
sanduuqa horumarinta Somaliland qaybtiisa labaad oo marka abaabulkiisa ama gogol xaridiisa socoto anaguna afkaar badan iyo qorshayaashada anagu aan jeedinay maadaama anigu aan ahay chairka wasiir ku xigeenkuna uu kamid yahay guddidaasi marka taasina ahmiyad bay lahayd dawladda Jarmalka iyo Hollandiisku waxay noo sheegeen inay aad u kordhinayaan dhaqdhaqaaqyada ama wixii ay ka qabanayeen wadanka ama ha noqoto wadooyin ama ha noqoto biyaha iyo sanitationka iyo private sector ka soo sheegay wax ka qaban doonaan waxa kale oo ay sheegeen Jarmalku inuu iskuulada farsamada laba hay-adood oo bangi iyo hay-ad kale oo GIZ la yiraahdo labaduba ay wax ka qaban doonaan intaas waa intaas ay ahayd marka de wada hadaladii si fiican bay noogu dhamaadeen waxaana inoo ballan qaadeen iyaguna booqasho naga daba socon doonaan marka wad mahadsantihiin intaas ay ku salaysnayn su'aal ku saabsan warqadii ay Soomaaliya u dirtay wadamada qaaran bixiyaasha ee ahayd in ay Somaliland ka joojiyaan deeqaha ay si toos ah u siinayaan ayaa waxa uu wasiirku kaga jawaabay waan arkay meediyaha xalay iyo shalay iyo maalmahan oo dhan anagu warqad dawladda Soomaalida iyo wasiirka qorsheynta xamar midna uma qorin haddii iyagu warqad qoreen oo internetka geliyeen ama hay'ado qoreen wax Somaliland khuseeyo ma anaga iyo hay'adaha caalamiga xiriir baa naga dhaxeeya oo aniga ku sheegay hadda wada hadal baan naga dhaxeeyay wax anaga naga khuseeya oo arintaasi ma jiraan haddii de awalba kamaan filayn anaga dawladda Soomaaliya waxa dogeedeen DP World waa dhaweeyay dhacday horumarka protest bay sameeyeen kamaan filayn warqad Somaliland wax u qabta oo aqoonsada oo horumariya de horena tadbiilaadka sano loogama hayo anigu haddana kulay surprise uma hadii warqad wax u dhima Somaliland ay ka soo baxday laakiin waxaan filayaa in aan aid ka siyaasad la gelin marka ay noqoto horumarinta mashaariicda horumarinta in aan siyaasad la gelin anaga way naga go'an tahay de taas baan awalna ahayd xiriirku in aan wixii horumarinka xagga iyaga iyo xaggooga toona